waxaa maanta si rasmi ah xadhigga looga jaray xarunta warbaahinta badda cas. xaruntan oo ah xarun warbaahineed oo ku cusub dalka Soomaalida isla markaana ku shaqay doonta hab casri ah ayaa waxaa xafladii furtaan ka soo qayb galay xildhibaano, siyaasiyiin, mas'uuliyiin ka tirsan saddexda xisbi qaran, ururka saxaafadda Somaliland iyo maarayaha TV-ga qaranka. ugu horeyn waxaa warbixin iyo faahfaahinba ka bixiyay xarunta warbaahinta badda cas gudoomiyaha xaruntaasi Cabdirashiid Maxamuud Daahir, waxaana ka mid ah hadaladiisii. marka koowaad Ilaahay baa mahad iska leh. mar labaad waxaan u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta codsigii aan u gudbinay amba invitation cardkii aan idin soo gudbinay soo ajiibtay ee horteeda fadhida. waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa mas'uuliyiinta TV-ga qaranka, maarayaha TV-ga qaranka Somaliland mudane Khadar Maxamed Cakule. waxaa kaloo isaguna xusud mudan gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soldier Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto. waxaa kaloo si fiican aan u soo dhaweynayaa amba aan aad ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha guurtida uu isaguna nagala fadhiyo xildhibaan Jirde, golaha wakiilada uu nagala fadhiyo xildhibaan Axmed Cabdi Kaahin iyo xildhibaan Cali Macalin amba Cali Aareeye sida taqaanaanba. waxaa kaloo aad ugu mahadnaqayaa mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran iyaguna nagala jooga aan soo casuunay uu kow ka yahay. xafladan waa xafladii furitaanka Badda Cas Media Corporation. Badda Cas Media Corporation waxay koobsanaysaa adeegyo fara badan oo ay ka mid yihiin qaybta samaynta website-da, barnaamijyo tayo leh, TV-gii localka ahaa BC24 TV oo arki doontaan oo isna Komizuna oo local iyo satellite insha Allah bismillaah kareem yeelan doona. waxay bulshadu isweydiinaysaa BC24 TV maxay kaga duwan tahay warbaahinihii hore u jiray. waa su'aasha u baahan in toos loo dul istaago martida iyo mudanayaashaba. haddaba Badda Cas Media Corporation amba BC24 TV wuxuu awoodda saari doonaa arrimaha bulshada. arrimaha bulshada markaan idin leeyahay waa caafimaadka, waxbarashada, biyaha, asaasiyada nolosha ee basiga ah. waxaan aad ugu mahadnaqayaa adeerkay oo ah shakhsigii koowaad ee markii aan Jabuuti ugu tegay the first one u gudbiyay fikirka aan aaminsanahay amba fikirka aan wato amba Badda Cas 24.com website-kayga ahaa inaan rabo inaan ka dhigo TV locally satellite gacmo furan ugu soo dhaweeyay. dhaqaalaha xaruntan maanta aan ku sameynaa amba aan ku yeelayna naga soo bixiyay. waxaan leeyahay halkaad ka soo saartay Ilaahay bedel khayr qaba ha kuu geliyo the first one. waxaan jecelahay laba shakhsi oo iyaguna hawshan amba warbaahinta qayb muhiim ah ku leh in la xusano mudan, in bulshada la gaarsiiyo amba doorka ay ku leeyihiin aan maanta halkan ka qirana iga mudan ayaan jecelahay inaan halka ku soo qaato. waa Sheekh Yuusuf oo dalka Ingiriiska jooga iyo Ifraax Cawaale Tubeec oo labada qofba ay joogaan dalka UK. waxaan leeyahay hawshii iyo dhiirigelintiinii iyo horumarkii aad ila garab taagneed waxaad filayay iftiinkiisii koowaad inuu maanta idin soo gaari doono. idinkuna aad dadweynaha kale amba marti sharafka iyo mudanayaasha iyo mas'uuliyiintiina horteeda fadhiyana aad baad mahadsantihiin. dhanka kale maarayaha TV-ga qaranka mudane Khadar Maxamed Cakule ayaa hadlo isugu jira soo dhaweyn iyo dardaaran iyo dhiirigelinba waxa uu soo jeediyay shaqaalaha iyo howlwadeenada Badda Cas. xarunta warbaahinta Badda Cas anigu kolleyba raay ahaan waxaan ugu imid oo shaqadii qarankeen hayay uga soo qaaday waqtiga gacanta in dhalinyarada iyo niyadooda ilaaliyo. marar badan dhalinyaradana waxa ku dhacda in dad waayeel iyo dad magac leh iyo dad kala duwan la casuumo oo ay ahayd bayna dhalinyarada gacanta ku hayaan, laakiin waxa laga yaabaa casuumada waqtiga kooban inaan dad badan helin oo dadka ay u yeedheen kala badhoobad uu ka maqnaado. taasina qofkii dhalinyarada ahaa meemanimada iyo hablihii dadaalayay waxay ku keenaysaa inuu mar kale dib isu eego ilaa kuma tahay uu isweydiiyo. haddaad dadka qaar ahaan lahayd malaha waa lagu dheganuglaan lahaa, laakiin dhalinyaranimadaada iyo ayaa sabab u ah in laga maqnaado. erayna waan ku darsanayaayo marka koowaad waxaan odhan lahaa horta erayadan luuqadaha qalaad bal horta aynu ka fadhiisanoonaan. horta ma Soomaali baynu nahay ma Ingiriis baynu nahay? sababtoo ah dastuurkeena ku cadday luuqadda koowaad ee qaranka. waxaan ku hambaliyeynayaa dhalinyaradan kow fikirka ay la yimaadeen. waxaan ku hambaliyeynayaa laba kalsoonida ay isku kalsoon yihiin. waxaan ku hambaliyeynayaa saddex dadaalka ay muujiyeen. xildhibaan Axmed Cabdi oo ah xildhibaan golaha wakiilada Somaliland ayaa isna waxa hadaladiisa ka mid ahaa.
soo bandhigay in aanu dhiirigelinno oo aanu garab istaagno oo aan muujino inuu leeyahay dad inuu leeyahay qaran inuu leeyahay shacbi iyaan maanta ugu nimid inaan u muujino oo tusno inaanu garabkiisa cidlo ahayn. dhanka kale xildhibaan axmed daahir maxamed jirde oo ka tirsan golaha guurtida somalilan ahna guddoomiyaha guddi-hoosaadka arrimaha bulshada ayaa waxa uu soo dhoweyn iyo dardaaran isugu daray shaqaalaha badda cas islamarkaana waxa uu soo jeediyey inay wax ka bedelaan wejiga hore saxaafadda somalilan ay ku shaqayn jirtay. aad iyo aad baan u bogaadinayaa warbaahinta cusub ee ah badda cas. midda kale waxaan aad ugu bogaadinayaa waxay keeneen fikir saliim ah oo ah siyaasad ma nihinaya arrimihii bulshada. anigoo golaha guurtida ah weliba ah guddoomiyaha arrimaha bulshada ee golaha ah waxaan halkan idinka ballan qaadayaa hiil iyo hooba inaynu idinag joogno inaan wax allaala wixii aad nooga baahataan iyo waxaan idinkaba idinka baahano aanu wada shaqayno mis ag taagno. waa fikir saliim ah. dadkeenu badanaa waxay buunbuuniyaan siyaasadda laakiin waxaa loo baahan yahay arrimaha bulshada hadday caafimaad noqoto hadday waxbarasho noqoto hadday biyo noqoto wax allaala wixii arrimaha bulshada ah aad baynu uga hoosaynaa kuma dadaalna ee dan gaara yaynu ilaalinaa. xildhibaan cali sheekh ibraahim aareeye ayaa dhankiisa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanka dararweyne ee gobolka Sanaag. war ragow war sidaa isku dhaam war ilaahayna ka baqa waxaa soo dhow suurtii baaba nagu soo dhow wakaad turkiguna galay meeshii inay halkaa ka dhacayso dagaalkii saddexaad ee adduunku ayaa imika ifafaalahu ii muujinaya. war haddaba idinkoo xabadda isla dhacaya labadiinaa beelood inay waadu yeedhiyo aanad kala garan waayaysiin meelaad u socotiin iyo meel kale war ilaahay u soo noqday. xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata isna waxa hadaladiisii ka mid ahaa runtii xaruntan badda cas ee warbaahinta hawma ee cabdirashiid madaxda ka yahay aad iyo aad baan u bogaadinaynaa iyo dhalinyartiisa kale. waa markii ugu horeysay ee qof saylac ka soo jeeda aw noqdo gudoomiye media wax badan baan ku gartaa Somaliland inay guuleysanayso war ciise isku taxallujinaya media samaysa oo ka hadal oo isaaq warayso oo dhulbaanta warayso waxaan leeyahay. dhanka kale guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Salal ahna xildhibaan golaha deegaanka ee gobolka Salal axmed yaasiin maxamed barkhadle ayaa waxa uu madashaasi ka sheegay inay gobol ahaan ay soo dhaweynayaan warbaahintan cusub isla markaana waxa laala wixii ay gobolka uga baahdaan ay diyaar u leeyihiin. walyeynaya cabdirashiid warbaahintan badda cas ee maanta xafladeedii aan joogno waxaan ka rajaynaynaa insha allah warbaahin dhexdhexaada inay noqoto dalka iyo dadkaba u dana taa waan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala. waxaan kaloo ku waanaya kolley dhalinyar ahaan suxufiyiinta maanta waddanka jooga ama dalkeena jooga waxaa u badan dhalinyar dadku ma wada sinna. dhalinyartana waxaad moodaa imika dad badan oonan u danaynayn qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyaga waxaan ku waaninayaa insha allah inay noqdaan dalkoogii iyo dadkoogii iyo diintoodaba kuwa u danaynaya inay noqdaan dadkana u ah dhexdhexaad. xogayaha warfaafinta xisbiga cumudna Yuusuf Kaysa ayaa isla dhankiisa waxa uu u soo jeediyay xarunta warbaahinta ee badda cas inay dhexdhexaad ka noqoto xisbiyada qaranka Somaliland isla mar ahaantana aanay xirfadooda kaga horeysin dana shakhsiya. xarunta warbaahinta ee badda cas oo aan filayo inay noqon doonto warbaahin dhexdhexaada qoladeeda xisbiyadu siiba u cid waa xisbiyada ugu da'da weyn Somaliland buu ka mid yahay miiriyahana intaa imaka uu jiray wuu garanayaa oo warbaahinta dhexdhexaadka iyo ta meelaha kale ku sumadan labadaba wuu garanayaa. waxaanu ka filaynaa inay noqon doonto warbaahin dhexdhexaada oo saddexda xisbi iyo ganacsiga iyo Somaliland badhex u ah
isla markaana wararkooduna had iyo goor website-ka booqashadiisu waxay ku xidhan tahay kolba siduu dhexdhexaad u yahay hadduu cid ku sumadii ay qaato ciddaa sumadeeda qaatun baa gelaysa laakiin hadduu somaliland oo dhan noqdo somaliland oo dhan baa gelaysa waxaan ka filaynaa inay noqoto meel dhexdhexaada oo wararka isu dheeli tira sida warbaahin karo iminka ay jiraan ba ay sameeyaan ma wada oran warbaahinta weyn warbaahin badan oo warbaahinta madaxa bannaan leh waxaan qabaa inay tahay muraayadda ay xukuumaddu isku eegto xukuumad kastoo markaa jirta muraayadda ay isku eegto inay noqoto waxaa gebagabadii soo afmaray xafladda islamarhaantaana si rasmi xadhigga uga jiray guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan maxamuud cabdi jaamac xuuto waxaanu soo jeediyey hadlay isugu jira dardaaran iyo soo dhoweynba ururka soolja wuxuu ka wakiil yahay saxaafadda somalilan waa urur qaran maadaama urur qaran yahay na runtii waxa uu isku wadaa oo isku soo dhaweeya warbaahinta iyo xukuumadda iyo bulshada saddexda qaybood runtii maadaama ururku aanu ahayn hay-ad warbaahineed laakiin uu maamulo hay-adda warbaahinta runtii wax aliyaala wixii cadasho ah ee ay iyagu qabaanna ururku wuu ka shaqeeyaa wax aliyaala wixii laga qabana ururku wuu ka shaqeeyaa ururku wuxuu ilaaliyaa runtii shuruucda dalka iyo xeerarka u yaala dastuurka somalilan wuu damaanad qaaday saxaafadda somalilan madax banaanideeda iyo xoriyatu qowlkaba labaduba way is soo galaanoo waa laba aan kala maarmin haddii la maqdo xoriyatul qowl madax banaani saxaafadeed baa ina halkan taala haddii madax banaani saxaafadeed la maqlana xoriyatul qowl baa isna halkan yaala marka runtii dastuurka somalilan meel fiican buu dhigay caqabada koowaad ee taagan waxa weeyaan in furashadii hay-adaha warbaahinta culays badan uu ka taagay maadaama oo badda cas aynu joogna maanta munaasabadeedii runtii waa arrimaha saamaynta ku yeesha hay-adaha warbaahinta in dhalinyar dadaalaysa oo doonaysa inay xirfadii ay barteen ee ay ku shaqaynayaan runtii ay horumar ka gaadhaan haddii uu cabdirashiid waxoogaa weriye soo ahaa ama in badan muddo soo ahaa oo hay-ado warbaahin ka shaqeeyey uu maanta ay ula muuqatay inuu institution uu isagu leeyahay aasaaso runtii waxaan qabnaa ururkuna ugu taagan yahay inuu ku taageero oo uu ku difaaco runtii inuu helo wuxuu sharcigu u ogolyahay inta ka horeysana runtii waxaanu ku taageeraynaa runtii in maadaama oo hay-ad cusub ay tahay wax aliyaala wixii taageero u baahan tahay haddii productionka iminka ay bilaabeen inta ay telefishinkii iyo systemkii ay hawada ku gelin lahayn helayaan in la garab galo oo la taageero in ururku waxyaabaha ugu badan uu qabto waxaa ka mid ah in uu tababaro suxufiyiinta maadaama oo hay-addani tahay hay-ad cusub oo warbaahineed oo la sameynayo runtii waxaanu urur ahaan ku taageeraynaa in aanu tababar kasta oo saxaafadda aanu u qabanayna runtii ay kow ka noqdaan xarunta warbaahineed ee badda cas ayaa waxaa laga furay maanta magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waana xarun ku cusub warbaahinada somalilan waxaana u shaqayn doontaa si online ah waa mustafa adhigabe xarunta warbaahinta badda cas hargeysa